iyadoo lagu jiro maalmihii barakaysnaa ciidal fitriga ee fooda nagu soo haysa ayaa caawa fiidkii waxaa booqday suuqweynaha magaalada Laascaanood iyadoo ciidanu ay ka duwan tahay ciidii hore xanuunka aafeeyay dunida ee coronavirus-ka awgii ayaa waxaa booqday gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Shiire iyo taliyaha qaybta gobolka Sool gaashaanle dhexe Maxamed Saleebaan Gooni ay weeriyaan ciidanka damdamiska booliska iyo qaybaha kala duwan ee nabadgelyada waxaana halkaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Shiire isagoo sheegay inay maalmaha ka duwanaan doonto ciidal fitrigu hase ahaatee loona baahan yahay laga bilaabo kowda maalinimo ee Jimcaha ilaa iyo maalinta saddexaad ee ciidda in isu socodka gaadiidka la xadiday degmooyinka iyo tuulooyinka guud ahaanba gobolka iyadoo la fulinayo amaamiirta iyo amarkii guddida heer qaran ee madaxweyne ku-xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu hogaaminayo habeenadii u dambeeyay bisha barakeysan ee Ramadaan waa habeenkii 29aad ilaahay waxaan ka baryaynaa bishaas inuu khayr ugu dhameeyo ciidan nabadgelyo barwaaqo sida aad u muuqato waxaan soo booqanay ciidankii booliska oo runtii ilaa maanta 10kii dambe hawsha adag shacabka u hayay waxa imika ila taagan taliye qaybta booliska taliye dandamiska si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa booliska oo runtii muddo dheer si fiican u shaqeynayay sida aad aragtaan iyaguna waxa ku soo biiray shaqada oo intii u dambeysay shaqeynay ciidanka dadamiska waxaan fariin u diray dadweynaha gobolka Sool ku nool haday noqoto culimo haday noqoto ganacsato waxaan leeyahay guddigii heer qaran ee COVID-19 amarada ka soo baxay sidoo fuliyo anaguna waa gudbinay insha Allah waad ogtiin ciidda la soo imaan maayo waxa la yiri ciid la soo imaan maayo kooda subaxnimo waxa ugu muhiimsan haddana halka soo istaagan waxa weeye berito Jimcaha markay tahay kooda subaxnimo wixii ka dambeeyay labada maalmood ee ciidan soconaysa waan arrimiimo mar saddexaad baan ku celinayaa berikooda duhurnimo marka laga bilaabo wax gaadiid magaalada soo galiya iyo gaadiid magaalada ka baxaya toona ma jiraan degmooyin iyo tuulo iyo meel kasta haday noqoto cid walba inta ka horeysa ka danayso labada maalmood ciidan soconaysa arintaas waa amar ka soo baxay guddiga heer qaran ee COVID-19 arrimaha loo sameeyay waxa weeye ka hortagga caafimaadka in xanuunka la isu gudbin ciidda oo dadku aan isu socon amarka boolisku waa qaba taliyaha guud ee ciidanka booliska ayaa la faray wasaaradda arrimaha gudaha ayaa la faray waxa isaguna halka ka hadlay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool gaashaanle dhexe Maxamed Saleebaan Gooni oo isaguna sheegay nabadgelyo ay tahay 100% isagoo uga mahadceliyay ciidanka damdamiska iyo taliyaha guud ee ciidanka damdamiska sida hawlaha uga hayaan gudaha magaalada Laascaanood oo sheegay 10kii u dambeeyay ciidanka damdamiska ka shaqeynaya nabadgelyo oo gacan ka helaya booliska amniga inaanu ilaalino inaanu nabadgelyada ilaalino waxaan u maleynayaa waa markii koowaad ee bacadlaha Laascaanood sida baabuur loogu xidho oo nafiska ay helaan oo wadada wankaana laga duwo wadada tuugaana loo duwo berikooda waxa bilaami doonta bandooba bilaami doonta jeedka la xidhaya safarada la kala xidhaya gaadiid soconaya ma jiro dadku ha maqlaan dadweynuhu ha maqlaan magaal hebel baan ku soo iidayaa iyo maalinta ciidka dambeysaan halka u baxayaa iyo ma jiraan cid wala meesha ay ugu dhacdo iyo dibay joogayaan berikooday ka bilaami doonta jeedka la xidhayo beribay ka bilaamaysaa hadii lahaydmo cid wala meesheedii ku iidaysaa isu socodka gaadiidka la hakiyay xanuunada dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood oo ka dukaansanaya suuqyada kala duwan iyo waliba ganacsatada ayaa iyaguna sheegay nabadgelyadu tahay 100% una mahadceliyay maamulka iyo waliba booliska iyo ciidanka damdamiska laga howlgalay suuqan weyn ee bacalaha ah si nabadgelyada guud loo ilaaliyo ee amniga loo ilaaliyo loo sugo ayaan u joognaa mooyo saadamba iideyno iyo amniga gobolka Sool oo aad iyo aad isu bedelay sidii taliyaha cusubna loogu soo bedelay amnigu waxaad moodaa hadda meeshaan ka hadlayna waa gooladii oo amni darre ahaan jirtay haddana amnigeedu 100% yahay waxaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaa ilaahay baa horta mahad leh waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa taliyaha qaybta ee Gooni oo amni fara badan magaalada gobolka Sool ka dhaliyay oo hadda ay dhacdo in dadkii si wacan wax u iibsadaan awal shacabku waxa waa la carari jiray maalintii ilaahay soo gooyo amni xuma haysay haddana waad aragtaa والله سعانود وقولتي بأنه هذا شغلنا الحمد لله إلى عيدة النجوم قارسيو نبتقليو أمنجو وناكسي هاي أمنجو وناكسي هاي ما أمر كسوع عم بشقينا يا ما شاء الله إن نبتقلي هذا لقى شكاية وعلى قال اللي عاون نبتقلي هذا قبل كي يسبدل كقويمي تليها عصبة إنوي مجوني إلهي وحلو قبلنا خير بدل الله سيو وهاي السيستم بدن ببدلي واحد بدن بحالتي كبدلي بوليس عاون ارتوى وده هيجن بكشرة sidii Ramadaan 10kii dambe heegan bay ku jiraan hatta ciidankii dabdamiska noo yimi
oo magaalada awal ka maqnaa uu noo keenay waa kuwa shaqaynaya وبرخض عمر أحمد البانتا دولة جمهورية الصوماليلان لاسعانوت